muuqaalkan aad arkaysaan waa masaajid ku yaala ceelasha biyaha oo lagu magacaabo dabaqeynka halkaasoo uu ka jeedin rabay galabta muxaadaro Mustafa Cali Caanood oo caanka deegaanka ceelasha biyaha isaga oo rabay inuu ku soo bandhigo muxaadaro uu kaga hadlayo. waxaa la soo sheegayaa in buuq iyo sawaxan ay ka dhasheen kadib markii jameecada masaajidka dabaqeynka deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada Muqdisho ay ku amreen inuusan gabi ahaanba wax muxaadaro halkaasi ka jeedin doonin iyadoo jameecada masaajidku ay sheegeen inuu Sheekh Mustafa Cali Caanood dadka Soomaaliyeed oo gaalaysiiyo. waxa ay jameecada masaajidku gabi ahaanba ay ka soo horjeesteen in sheekhaas uu jeediyay wax muxaadara iyagoo oo sheegay in uu dadka Soomaaliyeed ku tilmaamo kuwa aan diinba haysan sida uu marmarka qaar uu ka sheego masaajidkaasi. dadka Soomaaliyeed ayaa la yaabay Sheekh Mustafa Cali Caanood kadib markii muxaadaro dhowr isdaba jooga uu ku radinayo dadka Soomaaliyeed iyo waliba culimada caanka ee Soomaaliya isaga oo sheegay in dadkaasu ay dabadhilif u yihiin dawladda shisheeye dadka Soomaaliyeed sidoo hadalka u dhigay. waxaa galabta masaajidka dabaqeynka laga sheegayaa in halkaasi buuq iyo sawaxan ay ka dhashay kadib markii jameecada masaajidka iyo dadka deegaanku ay gabi ahaanba ku amreen inuusan ka jeedin karin wax muxaadara iyaga oo ku eedeeyay sheekhaas in dadka Soomaaliyeed uu si toos ah u gaalaysiiyo. waxaa la soo sheegayaa in buuq iyo sawaxan ay ka dhasheen iyadoo jameecada masaajidka iyo maamulka iyo dadka deegaanku ay gabi ahaanba sheekhaasi ka soo horjeesteen wax muxaadara uu ka qabto masaajidkaasi oo gabi ahaanba la joojiyay muxaadarooyinka halkaasi uu ku qaban jiray. Mustafa Cali Caanood ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu culimada Soomaaliyeed uu gaalaysiinayay iyo waliba dadka Soomaaliyeed isaga oo soo sheegaya in ayba yihiin kuwa dawladda shisheeye iyo waliba dad kala jaajuus u ah sida hadalka u dhigay. Mustafa Cali Caanood oo Facebook iyo YouTube ku soo bandhiga muxaadarooyin uu ku radinaya dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa dad badan oo Soomaaliyeed ay ka falceliyeen iyadoo culimada Soomaaliyeedna ay horay isu qabsadeen. sheekha caanka ee Cabdullaahi Barbaraawi ee ku sugan Somaliland ayaa waxa uu horayba u sheegay in sheekha ninkaas uusan ahayn wax cilmi ah waa sidoo hadalka u dhigay Barbaraawi. waxaana sheekhan oo in badan ummadda Soomaaliyeed uu ku eedeeyay inay yihiin kuwa aan diinta islaamka daacad u ahayn sida Mustafa Cali Caanood ayaa waxa ay dhowr jeer sidan oo kale ay culimada Soomaaliyeed isu khilaafeen iyadoo culimada Soomaaliyeed ay iskhilaafeen uu kamid yahay Sheekh Cabdulqaadir Soomow iyo waliba sheekha kale aanu ka soo sheekeynay Barbaraawi. dhawaan deegaanada Somaliland ayaa waxa uu ku sheegay dad aan diin haysan sida uu sheegay oo dabadhilif u ah dawladda shisheeye. Mustafa Cali Caanood ayaa culimada Soomaaliyeed caanka oo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu horay ula kulmay culimadaasi oo ku martiqaday madaxtooyada Somaliland uu culimadaasi ku sheegay kuwa dabadhilif oo aan xaq u sheegin madaxweynaha Somaliland sida hadalka u dhigay. waxa uu Mustafa Cali Caanood uu ceelasha biyaha masaajidkaasi dabaqeynka lagu magacaabo muddo badan ka jeedinayay muxaadaradaasi walow dadka deegaanka iyo maamulka iyo culimada diinka ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha iyo masaajidkaasi dabaqeynka ay sheegeen inuusan muxaadaradaba ka jeedin doonin. koox u wato iyo waliba dad taageersan ayaa masaajidka buuq iyo rabsho ka bilaabay galabta iyada oo dadka deegaanku ay sheegeen inuusan dib damba muxaadaro halkaasi uga qaban doonin. waxa uu rabsho ka dhaliyay masaajidka isaga oo buuq la yimi masaajidkaasi. dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay in uusan muxaadaro dambe ka jeedin Sheekh Mustafa Cali Caanood masaajidkaasi isagoo dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay Sheekh Mustafa Cali Caanood ay ka hor yimaadaan ama muxaadarooyinka uu qabanayo uu dadka Soomaaliyeed ku radinayo. dadka Soomaaliya ayaan wax jawaab ka bixin sheekhaasi ku sugan deegaanka ceelasha biyaha oo dawladda Soomaaliya ay ka tariso isaga oo horayba dawladda Soomaaliya ugu eedeeyay kuwa uu sheegay inay u shaqeeyaan dawladda shisheeye oo aan ku dhaqin shariicada islaamka dalka Soomaaliya sida uu sheegay Sheekh Mustafa Cali Caanood. sheekhan ayaa waxa uu YouTube iyo Facebook ku soo bandhigay muxaadarooyin uu ku radinayo dadka Soomaaliyeed oo iskugu jira culimo iyo waliba dad kale oo madaxa iyo waliba dadka ku dhaqan dalka Soomaaliya oo ku sheegay kuwa dabadhilif u ah dawladda shisheeye. haddaba maxaa loo fasilan karaa galabta buuqan ka dhacay masaajidkaasi iyada oo Sheekh Mustafa Cali Caanoodna la soo sheegayo inuu koox rabsho ka wada masaajidka agaarkiisa uu sheegay inuu ku salaaban doono muxaadarooyinkaasina uuna ka jeedin doono.